dhakhtar u dhashay dalka Kazakhstan oo lagu magacaabo Dr. Ibadullah oo ku takhasusay qaliinka guud ayaa maanta laga bilaabo si rasmi ah uga hawlgali doona isbitaalka guud ee gobolka Gabiley waxaana xafladii lagu soo dhaweynayay Dr. Ibadullah ka soo qayb galay kusimaha barsaabka gobolka Gabiley maayarka degmada Gabiley xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka Gabiley isku duwaha caafimaadka gobolka Gabiley xubno ka socday boardka isbitaalka iyo waliba dhakhaatiirta ka hawlgasha isbitaalka guud ee gobolka Gabiley waxaana ugu horeyn madasha ka hadlay xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka Gabiley xubnaha boorka isbitaalka oo dhamaantood soo dhaweeyay Dr. Ibadullah oo ay ku tilmaameen mid wax weyn ka tari doona baahiyaha caafimaadka ee ka jira isbitaalkan waxaan aad ugu faraxsanahay runtii in soo dhaweyno naga isku duuban dhakhtarkan qaliinka ah oo maanta hawsha ka bilaabi doona isbitaalkii weyn ee gobolka Gabiley waa wax weyn oo gobolkii u soo kordhay waxaan rajeynayaa in dhamaanteen inaan ka wada shaqeyno waxa weeyaan dhismaha hospitaalka dhaqaajinta hospitaalka iyo dhaqaaleynta hospitaalka intaba inaan ka wada shaqeyno waa muraadi gobolka weey waxaan aad ugu mahadnaqayaa cid wal oo ka qayb qaadatay oo dhinac walba ah oo ay koob ka yihiin waxa weeyaan bulshooyinka reer Gabiley dhamaantood oo ay ka mid yihiin waxa weey dhaqaatiirta laftooda maanta gacanta ku haysa ka shaqeynaysa gobolka Gabiley sida hawsha weyn ee u qabtaan gobolkeena aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maantana waxay inoogu soo biiriyeen anigoo fariin gobolka Gabiley oo dhan u diraya dhakhtarkaasi qaliinka inagoo u baahan baahiyaheenu farabadan yihiin haddana maanta waxa maxay ahayd aad ugu wanaagsan ninka yimid ee meelo badan ka soo shaqeynayay dhakhtarkii manhal ka shaqeynayay imikana lama huraan ka soo qaadanay waxaan leenahay gobolka Gabiley si gaar ah ha u eegaan ninkaasi baahiyihii aynu Hargeysa u tagaynay maanta gobolkeeni baa laynoo keenay dhakhtarkeeni baa laynoo keenay waxaan ilaahay ka rajeynayaa dadkaasi inay si fiican ula socdaan dhakhtarkaana aan ka faa'iideysano wixii kale ee inoogu soo gudboonaadana waxaan jecelnahay inaynu ka wada qayb galno inoo maanta inteenaasi dawayntii bulshada uun metelaysay sidoo kale isku duwaha caafimaadka gobolka Gabiley Dr. Ciise Sheekh Maxamed Warsame ayaa tilmaamay ahmiyadda uu dhakhtarkan u leeyahay isbitaalka gobolka waxa aad aniga ii farxad gelinaysa in talaabo aan kor ugu qaadayno caafimaadkii gobolka Gabiley farxad gaar ah dadku uma wada sinnaanayaan qof walba hawl gaar u leeyahay qofkii khusaynaysay runtii waxaan aad ugu sii mahadnaqayaa fikirka lama wada yeesho ciddii fikirkan aasaastay in loo doono gobolka dhakhtar qaliina aad baan ugu sii mahadnaqayaa cidda deeqda qofka inoo imanaya lacag buu inoogu joogaa qofka dadka deeqda ka qayb qaatay inkastoo aan tigay baryahan gacan badan ku ogeyn shacayb haddana waxay doontaa ka baxaan aad baan ugu mahadnaqayaa ugu dambeyntii maamulka gobolka iyo kan degmada Gabiley ayaa mahadnaq ballaaran u soo jeediyay dhakhtarkan cusub waxayna tilmaameen inay la shaqeyn doonaan dhakhtarkan farxad weyn bay runtii maanta inoo tahay haddaynu reer Gabiley in aynu maanta helo oo soo dhaweyno labadii doctor ee aynu isbitaalkeenu u baahnaa ee aynu hore u dalbanay mid ka mid ah oo ah walaalkan Dr. Ibadullah u dhashay wadanka Kazakhstan nin muslim ah oo runtii maanta ah doctorkii koowaad aynu helay oo qaliinka guud runtii waxyaabo badan oo kalena ay u raacaan oo xataa isku furanka iyo noo sheegay inuu yahay dhakhtar specialist ku ah aan filayana in baahi weyn inaga dabooli doono runtii dhakhtarka kale ee dumarku isagana aynu baahidiisa muddo hore la soo gudbiyeen isagana waa raadin doonaa insha Allah لا أدري أي اللغة التي أتكلم بها العربية أم بالصومالية أولا بالصومالية marka hore waxaan u mahad celinaynaa cid kasta oo gacan ka geysatay kulli anagu doorkeeda aan lahayn runtii sida Dr. Axmed sheegay waana yeelan doonaa hadii Ilaahay dhaahdo sidii awalba aanu isugu xidhnaan doonaa siduwahana waad mahad celinayaa hadii uu gaab dareemay waxaan leeyahay abti bariyana riboodadii maad soo gudbin wixii ribooda soo gudbi ismayna wareysan
safar baan ku maqnayn aan iswareysano wixii maaragtay naga gaabisan aan hagaajisana haddii ilahay idhaahdo taasi waa taa kalabeyrka oo kale MCH-ka maandhowdan soo maray aniga dhakhtarku kormeerku soo maray waan ka sheekaysan doonaa wixii aan kusoo aragnay marka kulley dardargelin baynu u baahanay dhinaca shaqada caafimaadka xagga maayirka degmada Gabiley oo doctorka kula hadlay luqadda Carabiga isagoo uga warbixiyay xuduudaha gobolka Gabiley dhakhtarkana waxaan leeyahay doctore أهلا وسهلا أريد أن ألقي عليك تحية الإسلام تحية أحلى من العسل وأطيب من المسك وأثقل من الجبال لو هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية محافظة قبلي أهلا وسهلا ومرحبا بك يعني محافظة مشهورة بالزراعة ورعي الحيوانات وهذه المنطقة يعني منطقة مترامية الأطراف يعني واسعة كبيرة جدا إلى حد ما تتكون مدينة عاصمة إقليم قبلي و5 مدن أخرى أيوة وهذا المستشفى مستشفى العاملي هذه المدن مدينة أرابسيو شرق قبلي وسكان يعني عدد سكانها كثير جدا إلى حد ما ومدينة أليبضي بين حدود بين سوماليا وإثيوبيا وجهالي مدينة وجهالي مدينة جيد بلاد كل هذا يعني مدن يتكون يعني إقليم قبلي في كل مرة نرحب بك بيد مفتوحة ويعني مهنتك نحن بحاجة ماسة إلى مهنتك إن شاء الله تعالى وهناك علاقة قوية بين المستشفى العام والمحافظة قبلي والأعضاء مجلس النواب يرحبونك والشيوخ يرحبونك ويعني الموظفين المستشفى ومسؤولين المستشفى يعني يرحبونك كلكم يعني يرحبونك والملوك في إقليم قبلي يرحبونك والصحافة ترحبونك كل شيء يرحبونك إن شاء الله. si kastaba haatee Dr. Cibaadullah oo ku takhasusay qaliinka guud ayaa waxa uu dhashay dalka lagu magacaabo Kazakhstan. Doctorkan ayaa wax weyn ku soo kordhin doona baahiyaha caafimaad ee bulshada ku dhaqan gobolka Gabiley. Geesta kalena waxa uu dhakhtarkani baajin doona dadkii Hargeysa u tagi jiray qaliinada guud maadaama gobolka Gabiley ay ku dhaqan yihiin dad lagu qiyaaso inay ka badan yihiin 250,000 oo qof. kuwaasi oo markasta u baahan dhakhaatiir caalami ah oo ka hagabtira adeegyada caafimaadka ee bulshada gobolku ay baahida weyn u qabto waa Jacfar Awil Harari shabakada wararka ee Gabiley News Network magaalada Gabiley.